daawadayaal waa barnaamijkii dayaan oo alaab idinkaga yimaada magaalada Boston ee cariga dalkan Mareykanka ama gobolada New England. maanta barnaamijkii dayaan waxaanu la nimid caasimadda waddankan Mareykanka ee Washington DC anaga oo chance u helnay ama fursad u helnay in aanu la kulano jaaliyadda Khaatumo State of Somalia oo u banaan baxayay in ay taageeraan ama muujiyaan midnimada ummadda Soomaaliyeed. haddaba waxaanu banaan-baxaas aan nasiib u yeelanay inaan la kulano Afhayeenka maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Khaatumo Saleebaan Waji Xaad. Saleebaan kusoo dhawow barnaamijka dayaan ee Soomaali Sad. baad u mahadsantahay Xuseen, aad baan ugu dhawahay, waana kugu mahadinayaa kulankan aynu maanta kulanay iyo waraysigan aynu wada yeelanayno insha Allah. waa hagaag in Saleebaan su-aasha ugu horeysan ku weydiinana waxay tahay waa sidee xaaladda ay ku sugan tahay maamulka Khaatumo haatan? Xuseen, aad baad u mahadsantahay. waad ogtahay Khaatumo beriyaha kanba waxay ku jirtay sidii ay u qabsan lahayd shirkii Khaatumo 3 hase ahaatee duruufo kaga imanaya maamulkan Somaliland oo dandaansi iyo gardarro iyo in aan dadka deegaankaasi aan ayadoo ka tashan mar walba ka shaqeynayay dhulkoodana doonaya mar walba boob iyo dhac iyo dhibaato inuu ku hayo ayaa arrintaa carqaladeeyay. hase ahaatee markii laga soo gudbay hadda waxaa la wadaa sidii loogana soo kaban lahaa, shirkuna u qabsoomi lahaa, nabadgelyada deegaankana loo sugi lahaa, horena looga socon lahaa. marka xaalaadku aad bay u wanaagsan yihiin. waa arrin aanan marna dib uga noqonayn, marna baan cidna niyad jebinayn, si walba oo aanu arrimahayga kusii wadan karnaba mar walba aanu wadano. taasaana dadku u diyaariyeen kana shaqeynayaan. wax kasta iyo carqabad hor timaada waxaa ka muhiimsan oo dadkaasi ay mar walba ay ku dadaalayaan inay hawshooda hor u socoto. marka tii baa lagu mashquulsan yahay oo lagu midaysan yahay oo meel walba laga wado laga shaqeynaya dibadii gudaba. run ahaantii maanta waxaan aanu soo aragnay ama aanu markhaati aanu kan ahayn in dad aada u tiro badan aada iyo aada u tiro badan ay isugu yimaadeen aqalka wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka. marka maxaa waxaasoo dadi isugu yimaadeen, xageena ka kala yimaadeen wada reer Virginia? aynu usoo noqono maanta Xuseenow, mudaharaadkii weynaa ka dhacay aqalka arrimaha dibadda ee Mareykanka haddii aan usoo noqono, waxa weeye dadkii aada arkaysay, aada witnesska u ahayd ama markhaatiga u ahayd ee halkaa iskugu yimi ee meelay kala istaagaan waayey, waxa weeye wax ay la hadheen ma jirto. shucuurtoodii iyo qof walba siduu doonaya inuu u gaadhsiiyo fariintuu halkaa uga yimi, gurigiisa uga yimi, horta sidii la doonayay bay u gaadhay. madaxdii Africa u qaabilsanayd, kuwii Soomaaliya u qaabilsanaa, kuwii u qaabilsanaa guud ahaan siyaasadda inuu adduunka oo dhan baa noo soo baxay. rag ilaa gaaraya oo 2-3 jeer kala jaada noo kala yimi baa noo soo baxay. intuba qoraaladii waa u dhibnay, saan kuu sheegay wixii dhan waan u dhibnay. waxaa kaloo jira dad badan oo aanu masha kula kulanay oo organisation ah oo raggaasi ay yihiin rag inooda ka shaqeeya ama had iyo jeer u fiirsada waxyaalaha adduunka ka socday, kamid yihiin xagga humanitarianka, xagga magaranaysa amnestyga, dadka xuquuqul insaanka u hadla. waxaanu la kulanay niman badan oo ka socda tviyada Mareykanka sida Fox News oo kale, CNN oo kale. waxaanu la kulanay BBC-dii, Voice of America rag ka socda. intaba waxaanu u gudbinay qoraal ahaan iyo cod ahaanba wixii aanu doonaynay inaanu gudbino. marka sidii aanu doonaynay iyo si ka fiicanba waa nagu dhacday. waxaanu wadnana maaha mid aanu joojinayno ilaa aanu guusha ugu dambeysa aanu doonaynahan inaanu. waa hagaag, waad mahadsantahay. ma is leedahay marka waxaabad is leedihiin Khaatumo ahaan waxaad is leedihiin ku xoreeya dhulkiina mudaharaad? ma lihiin dhulkayaga mudaharaad baanu ku xoreeyanaa. waxa weeye halkankani ma aha dadkii ugu horreeyay ay soo martay adduunka, ma lihin. waxa weeye dad badan oo adduunyada kamida baa soo maray. tactics badan baa la isticmaalaa, ha noqoto mudaharaad, ha noqoto qoraallo, ha noqoto diblomasinimo, ha noqoto qaniya kaafkiisa baa la yidhi mid haddii gacan lagu taago adiguna gacanta. everything waa possible. laakiin annagu waxaanu nahay dad really aan doonayn maanta in burbur cusub iyo dagaalo cusub inay maanta madaqada ka bilaamato. annagu waxaanu nahay dad mar walba u taagan inay nabadda ka shaqeeyaan, dadka jaaraankeena kula noolaadaan. Somaliland mar walba la taagan ciidamadooda inay ka baxaan, si walba ay kaga baxayaanna
diyaar baan u nahay inaanu kaga saarno annagoo isticmaalna every strategic every effort si walbo dadaal ah aanu ku heli karno inaanu kaga saarno maamulkaas ilaayay Somaliland diyaar baan u nahay marka maaha only one factor ama tactic kaliya aanu isticmaalno tacticyo badan oo aan muuqan oo aanu samaynaa jira waanu ku hawjirnaa har iyo habeen dad baan saxan waxaan ka shaqeynaya marka si walba aan wadankeega nabadgelyo kusoo dabaalano diyaar baan u nahay waa hagaag laakiin optionka dagaalka ah runaantii aad baad uga agjiidasaan marka maxaad is leedahay arrintaa way sababaysaa door saad ogtahay baa anagu ma raba dagaalna ma wadno dibna ma wado annaga waa dib baa nalala soo doontay dagaal baa nalala soo doontay dhulkayga baa xoog lagu qabsaday ciidan baa lagu soo weeraraya had iyo jeer ciidan baa had iyo jeer ku imanaya markaad arrintan ka hadla arrintaas waa exactly waxa weeye ciidanka waan oganu soo weeraraya ciidanka Malaysia tan ka imanaysa Somaliland waan ognahay tabartoodana waan ognahay annagu mar walba waxaan isticmaalnaa every other wixii kale ee muhiima oo aanu kaga gudbi karno in aanu sidaanu doonayno noogu hagto haddeer batan aad arkaysid ee khasabka lagaga saaray waxyaalaha keenaba ka mid tahay taatigan aad u jeedo wajinaan hadda halka kan ka isbeelan gareeyo maaha rag isguraya marka maaha kaliya in marka xabad lagu taago inaad adiguna 10 xabad taagtid laakiin annagu nidaamkayaga siyaasadeed ee diblomaasiinimo iyo habkaan nimanka kaga saari lahayn mar walba waa wax noocad oo noo qeexan waana ta aanu wadadeeda hayno ilaa aanu wadankayaga iyo dalkayaga iyo dadkayaga aanu nabad iyo horumar kusoo dabaalano waaga ugu dambays maxaad kula dardaarmaysaa jaaliyadaha runaantii dadkii badnaa ee ka kala yimid gobolada wax badan ay soo gaariga soo kaxeeyeen oo soo drive gareeyeen marka maxaad kula dardaarmaysaa jaaliyadihii maanta isugu yimid banaanbixii aad ku weynaa ka dhacay horta waxa weeye qof walba reer Khaatumo waxay ku tiyaarinayaan laa shuru ala waajib waa wax qof walba reer Khaatumo adduunka dacaladiisa oo dhan jooga ku waajiba badankoodana iyagoon cidna weydiin wixii hawl u taalay iyo waxay dib kala kulmeeyay eegeen oo ay u sacrifice kareynayaan ama u horeeyaan dadka iyo dalkooda ayay maanta halkan yimaadeen laakiin way ku mahadsan yihiin waana halgan iyo dadaal dheeraada oo badan oo kalena waa naga horeeya waa run dad baa soo gawaari soo waday oo soo socday dhowr iyo 10 saacadood waxa weeye dad baa noqoshaday noqonayaan ilaa iyo dhowr iyo 10 saac kala soconaya maantoo dhan halkaa taagnaa oo muujinayay ra'yigooda iyo waxay doonayaan dadka adduunyada inay maqashiyaan marka waa mid qof walba oo maanta reer Khaatumo dib kasta iyo haraad kasta iyo daal walba meel walba ay joogaan diyaar waxaan ka qabtaan waxaana doonayaa shacab weynaha halka iga dhageysanaya Khaatumo meel walba adduunka ka joogaan waxa maanta Washington ka dhacay maanta ka dhacay London waa mid aynaan joojinayn waa mid ilaa inta aynu gaarsiinayno u sheegayno maamulka Somaliland hargeysa lagu arrimiyo dibta iyo durdugsiga iyo dhulboobka iyo dhibaatada iyo dhaca iyo kufsiga iyo cadaalad xumada uu inagu hayo ilaa aynu banaanka ka dhigano adduunka dhan tusano inaynaan joojin meel fiican bana inoo maraysaa waxaan idinku dardaarweynayaa meel walba aad joogtaanba ha ka hadhina guusha dacalka inoo saaran tahay istaba raacino waad mahadsantahay Saleebaan waxa igu yaabka badnaa wuxuu ahaa badanaa weerarada dadkii banaanbaxayay waxay aad u weerarayeen rag madaxa oo loogu yeerayay horgalo inay yihiin marka ka maamul ahaan maxaad ka aaminsan tahay horta waa jiraan inuu dad u dhashay deegaanka Khaatumo State of Soomaaliya oo maamulkan hargeysa looga arrimiyo iyo haddii noqotaba maamulka dhinaca naga xiga kala Puntland ka shaqeeya really waa mid aanu fariin doonayno inaanu gaarsiino waa mid aanu doonayno inaanu dareensiino war isku degaan baynu nahay isku dareen baynu nahay isku dhib bayna haysaa maanta in aad nin asaagaya aad maanta la joogtid oo aad u shaqaysid oo lagugu karbaashaa maanta ma taalo waxaan doonayaa nimankaa saaxiibadaya inaan fariin real halkan uga gaarsiiyo oo waad aragteen maanta beeshii dhexe koodii mucaaradka iyo koodii muxaafidka intuba intay isku yimaadeen waxay go-aan ku gaareen gobolada Sool iyo Sanaag iyo Cayn inay dhiig cusub ku daadiyaan inay gacan biro ku qabtaan
inay dhibtay ku hayeen 10 jeer sii laabaan oo press conference ku qabteen waxa loo tashanayaa waa dadkiina waa walaalihiin waa habaryirihiin aftiyaashin awoodin adeeradiin waxa la doonaya in la baabiyo adduunka dhan laga reebaana waa dhulkii aad ku dhalateen waxaan leeyahay waa time aad garan lahaydeen sidii dadkiina aad ugu soo noqon lahaydeen wixii aad qaban kartaan dadkiina la qaban lahaydeen ma waxaa la yidhi Soomaalidu waxay tiraahdaa gacmo sacbeeda lagaga dhargacay waa markii aad dadka iyo dalkiina aamini lahaydeen marka walaalayaal soo dhawaada waan soo dhaweynaynaa midnimaynu u baahannahay inaynu meel uga soo wada jeesanaynu u baahannahay maanta inaad xaafad kale iyo dad kale aad ogtihiin dhibta iyo cadownimada dadkiina ku hayaan inaad ag fadhidaan damiirkaas weynaad ka gudubtaan oo aad u timaadaan dadkiina hadduu eebedmo taana waa soo dhaweynaynaa mar walba anagu waa soo dhaweynaynaa cid walba aanu isleenahay waa dadka iyo deegaankiina inaanu wada hadallo wax wada qabsano marka ayagana waxaan leenahay it's time to come home sida ka muuqatay dadkii banaanbaxayay aad bay ugu cadhaysan yihiin nimanka hadda aad ka hadashay ama loogu yeedhayo horgalada kana tirsan madaxda maamulada hareeraha ka xiga maamulka Khaatumo miyaa la cafinaya dee markaas maamulka Khaatumo miyaa cafinaya waayo dadka maamulka Khaatumo badanaa wuxuu ku dhisan yahay rabitaanka shacabkuna runaantii aad bay ugu xanaaqsanay ragga marka see la soo waafashi doonaa cadhada shacabku maanta u muujiyeen iyo idinkiina soo dhaweynaysaan ka maamulahaan waa dhab wax way horta maamulka Khaatumo State of Somalia ama deegaanada SSC oo dhan waxa muhiimadayadu tahay midnimadayadu waa muqadas waxaanu ka nimi meel aad iyo aad u fog oo ah in aanay jirin dad qadiyada tan iyo nidaamkan ah in aanu nagu dantayada garanno dhulkayaga maamulano anagu aanu dalka ka talino in aanay hore u jirin haddase maanta 95% shacabka SSC meel walba ay joogaan isku raaceen inta naga dhiman ama magacii la doonaha lagu yeero ama meeshay doonaan ha joogaan waxaanu doonaynaa 100% in midnimadayadu taam noqoto waana tan la doonayo dadka aan doonayn dadkaas inay horumar iyo nabad helaan waa tay doonayaan sidaa inay u kala maqnaadaan marka anaga muhiimadayadu qof walba u dhashay reer Khaatumo waanu soo dhaweynaynaa midnimadayada ku dhisha ku xidhan ma jiro aynu wada fadhiisano innaga dhulkan wada le dad wada dhashay baan nahay gacmo furan baan ku soo dhaweynaynaa because midnimadayadu waa takaliya aan ku gaari karno horumarka iyo waxa dadka iyo dalkayga u fiican ugu dambeys maxaad soo jeedinaysaa talahaan reer Khaatumo waxaan leeyahay gurjaab shaqo fiican baad samayseen muddadaynu hawshan soo wadnayna waad aragtaan horumarkaynu muujinay dadkii sheegayay 23ka waxaan waxba ka jirin maanta qaylada ka baxaysa waad aragtaan taana halkaynu ka soo bilownay halkaynu marayna waad aragtaan maanta waxaynu u baahannahay inaynu midnimadeena xoojino inaynu maamulkeeda garab istaagno wax allaaliyo wixii inagu hor yimaadana sida ugu habboon ee wada jirka ah inaynu la nimaadno oo kaga baxno walaalayaal waad mahadsantihiin waxaynu u baahannahay dadaalka aad wadaan inaynu jibaarno ilaa intaynu dalka iyo dalkeena inagu aynu nabad ku soo dabaalayno inagu controlayno inagu maamulayno mar dambe wiil asaaga inagu talin marka hawl baa inoo taale nin lagu saxdo aseexan baa leeyahay dadkayga reer Khaatumo meel walba adduunka dacalaad iska joogaan kaasi wuxuu ahaa afhayeenka maamulka Khaatumo State of Somalia Saleebaan Xaaji Maxamed Saleebaan Waji Xaad oo aanu fursad u helnay in aanu waraysi kaga qaadno banaanbixii kadib hoyga uu degan yahay oo ah Hilton Alexandria Virginia daawadayaal barnaamijka dayaan ee Somali Sad oo maanta idinkaga imanayay caasimadda waddankan Mareykanka ee Washington DC anagoo waraysi kula yeelanay afhayeenka maamulka Khaatumo halka ayuu inoogu dabranaan doonaa intaynu ku kulmi doono kulankan lamidana waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo is arag dambe oo xiiso leh